dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay go'aano culus oo ku aadan tababarada la siiyay ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Go'aanadan oo Turkiga awood siinaya iyo ra'iisul wasaare Xamse oo go'aankan si geesinimo leh ugu dhawaaqay. Isbeddel ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan lagu sameeyo dowladaha tababarka siiyay ciidamada qaranka, xilli dowladaha qaarkood ay bilaabeen in mushaaraadka ciidamada ay goostaan si ay uga shaqeeyaan danahooda gaarka ah. Haddii ay diidaanna mushaarka laga goosanayo. warbixin la xiriirta ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa. Haddii aad nagu cusubtiin fadlan ku soo biira bartayna Facebook oo ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday go'aan culus oo ku saabsan ciidamada qaranka Soomaaliyeed, waxaana maanta ku dhawaaqay go'aankan culus ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo uu taabanayo dhismaha iyo tababarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay bixiyaan dowlado kala duwan oo saaxiib dhow la ah Soomaaliya oo ugu horeyso dowladda Turkiga. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo booqday kulliyadda tababarka Turkisom ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay mideyn doonto dhammaan tababarada kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee ay bixiyaan dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya. Xamse ayaa sidoo kale tilmaamay in ciidanka qalabka sida loo dejinayo hal manhaj oo mideysan taas oo xoojinaysa gudashada waajibaadkooda qaran. Sidoo kale wuxuu saraakiisha iyo ciidanka kula dardaarmay inay yihiin rajada dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin isla markaana ay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Waxa uu kale ra'iisul wasaaruhu ballan qaaday in dowladdu abuureyso hay'ado u xil saaran daryeelka agoonta ciidamada qaranka, isla markaana maalin qaran loo asteyn doono sanad walbana maalinta shuhadada la xusi doono. Wuu tilmaamay in markan dowladdu isku howleyso. Ugu dambeyn waxa uu u mahadceliyay dowladda Turkiga oo si weyn u xoojisay taageerada isugu jira qalabeynta iyo tayeenta ciidamada iyo dhinacyada caafimaadka gargaarka xaaladaha degdegga ah. Soomaaliya ayaa haatan sameynaysa dib u kabasho dhismaha militariga, waxaana ay heshay ciidamo badan oo ay u tababareen dowlado kala duwan sida Turkiga, Eritrea, Djibouti, Uganda iyo dalal kale oo ay ka mid tahay Imaaraadka Carabta oo dhaqaale ku baxaya tababarka ciidamada ku deeqday. In dib ay u qaabayso dowladda federaalka Soomaaliya qaab dhismeedka ciidamada qaranka isla markaana ay mideyso tababarada ay qaataan ciidanka ayaa timid kadib markii dowladda Turkiga ay u gudbisay dowladda federaalka Soomaaliya in ay si guud u kordhinayso taageerada militari ee Soomaaliya siiso. Waxaase jirta oo meesha ka baxday taageeradii dhinaca Imaaraadka Carabta ay ka helayeen ciidamada militariga Soomaaliya oo qaybtood Imaaraadka Carabtu ay ballan qaadeen dhaqaalaha ku baxaya ama mushaaraadkooda ay bixinayaan, balse taasi ay gebi ahaanba meesha ka baxday tan iyo markii Muqdisho lagu dilay saraakiil ka socotay dowladda Imaaraadka Carabta oo tababarada u qaabilsanaa. Joogsob salaasar salaangoy miiska dhaarta bidix midig jeesob miiska dhaarta gacanta saar. waxaa igu wallaaya waxaa igu bilaaya waxaa igu tallaaya inaan daacad u noqdo dalka dadka iyo diinta, inaan u hoggaansanaado dhammaan xeerarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qawaamiinta kale ee u dagsan dalkayga si aan u fuliyo amarada madaxdayda si hakashalaana, in aan heegan iyo gaashaan u noqdo difaaca cirka, badda, dhulka iyo dhammaan horumarka
qarankayga Soomaaliyeed in aan xifdiyo siraha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo in aan waxba ula kala harin dadaal iyo karti si aan ugu dhowro baylaha iyo dayaca hubka iyo qalabka kale ee qarankayga igu aaminay wabillahi tawfiiq استك بدح مديك جسر سلاسر سلام قوي دبو جسر هوري صعب